والسلام على رسول الله وحائد سلامي سلامت أي بايان سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همبلي أيها إذن لي هاي maalinta xornimada maalinta kowda luulyo maalintii gobolada Soomaaliyeed ay mid quraan noqdeen intaas waxa ii weheliya oo rabaa inaan idin soo bandhigo Cabdulqaadir Cali Boolay waxa uu yahay waa ninkii Israa'iil dhalinyaradii Israa'iil oo calanka annaga hadda korka u sidno ninkii dhaliyay way wuxuu leeyahay taariikh dheer wuxuu yaqaanaa oo og yahay xubnimo waxay tahay maanta waxa farcad weyn in magaaladan Oslo inaan uga qayb galo 52 sano kadib markii ummadda Soomaaliyeed isticmaalka iska qaaday xornimadeedii ay hanatay hase yeeshee nasiib darro ayaa leeyahay maxaa yeelay xornimada macaanka ay leedahay hadda qof kasta dhalinyarada waa dhadhamiyeen maxaa yeelay dalkii ay ka yimaadeen dal kale oo ajnabi ah ayay maanta ku nool yihiin caruurteennii meelahaas ay ku baaba'san yihiin waxaa loo baahan yahay badbaado yaa badbaadi karaa caruurta dal xor ah ayaa wax badbaadi karaa
dalaan xor ahayn wax asbabbaadi kala ma jiro haddii taariikhdii SYL xoogaha aniga sheego saad ogtihiin 13 dhalinyaro ah oo kii ugu yaray 16 sano jiray kii ugu weynayna 33 sano jiray waxay garteen in isticmaar dhibaatada uu leeyahay ay garteen saadaraaddeedii waxay abuureen urur la yiraahdo Somali Youth Club maxay dhalinyarada ahaayeen waxay sameysteen meel ay isugu yimaadaan reer hebla hal laga daayo ummadda Soomaaliyeed waa iskaashati iska wax u qabso iska wax suubi kooxdan soo bahayso waa iskaashati iska wax u qabso iska wax suubi kooxdan soo bahayso waa iskaashati hooyo walbo ciyaal dhashay aabbo walbo ka dhalay annagoo dhan iskaashataanay awoowayaal ayeeyaal Soomaalida waa iskaashato iskaashato ma gubtee hadday gubtana way kacdaayay haybadu ma tagtee hadday gubtana way timaadaa Soomaalinimo ma dhimatee mar walbaba way dhalataa wiilyo intay ka jiri waa jiri jacayl baa naga dhigin qora sida geedkeedii soo kalaan isugu dhey dagaal iyo dadaal badan baanu mari jirnay iyo jahannaba dhexdaan ka jirina jilbahaan ku istaago oo ku oran dhiman weyne waa dhalan hooda ee baa iga kiindhigay kuna faani inta ka kaleedigi ayeeyaa tiri haddii la dhimanaayana dhareerka waa la iska duwaa Soomaalinimo malo dhashaa mise waa la iska dhigaa maalintani runtii waxay ahayd maalin qiimo leh gaar ahaan qurbajoogta Soomaaliyeed qiimo gaar ah leh waxay soo socotay 6 sannadood 6 sannadood oo runtii aan ku bilownay xilli ay adkayd oo dadku yaraayeen xilliba ay heerar iyo maraaxil badan soo martay waxa maanta inala joogo halkan idin hortiina fadhiya wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdisamad Maxamed Macallin Xasan oo ah ayaa inala jooga waxa kale oo isaguna jooga madaxa waaxda socdaalka ama hoggaanka socdaalka General waxayna jooga General Cabdillaahi Maxamed Gaafow oo hortiina fadhiya oo reer Banaadir oo dhan wada garanayaan iyo Soomaali oo dhamiba runtii waa farxad gaar ah ayaan yaasiin waxa weeye waa aasaasihii ama qofkii initiative-ka ku sameeyay maalintan maanta 6 sano jirta in ay bilaabanto marka ayaan si gaar ah ku soo dhaweynaynaa waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa martida sharafta leh ee nooga timid waddankeena Cabdisamad oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo waaxda socdaalka oo Gaafow ah marka waxaan idin leenahay farxad weyn ayay noo tahay maanta in ay nala qaybsadaan maalintii aan xornimada qaadanay 1 Luulyo 6 sano oo arrintaas soo wadnay maanta natiijadeedu waa gaarnay adduunkii oo dhan waa nagu dayday qurbajoog oo dhan calankii kor loo qaaday marka Soomaalidu waxaan u maleynaa qalbigiian ka noolaanay ilaahayna waxaan ka baryaynaa in dalkeeni uu nabad nooga dhigo colaadda iyo dhibaatada iyo barakaca waxa nagu habsaday ilaahay inuu naga dulqaado dadka soo garaadana duni lagu abaarsado aqliga mawaaye jawhar سريقاف عبد الله محمد قافو وهكذا كلمة كلانا إذا كسو جيديا بسم الله الرحمن الرحيم أنا وقت السياسة الوالي وحي السياسة
waxaa naga warrami doona wasiirka laakiin aniga waxaan in bulshada la shaqeeyo bulshada aad u yaqaano garanayo hadda qabaa markaa meelaha nimid dhallinyaradii celinayaan dadkii saas yeelayaan meel qalaanaan ka sheegayna waxbadka ma jiraan qof aan celinayna ma jiraan qof kasta waxaan ku dadaalaynaa inuu meeshiisa ku nabad galo dadkiisa la shaqaysto marka xantaasaan rabnaa inaan halkaan ku bixinno maanta ay tahay maalin taariikh weynle maalinta ummadda soomaaliyeed in calankeeda la saaray ay tahay been ma ka sheegayna calanka maalintii la saaray weeye qof soomaaliya oo aan gaalo aniga ula heshiinay amba dowladda ula heshiinay ambaan ula heshiinayno haba yaraantee ma jirto dadkiinaan oo halkaan degan waa laydinka badiyey yurub sweden iyo finland iyo aadaa looga yimid maalinta dhoweed waxaan xasuusanayaa nin soomaaliya oo finland ka yimid oon aeroboortka xamar ku arkay wuxuu igu yidhi hadiyadaana waxaan u wadaa qaranka soomaaliyeed hadiyadii waxay noqotay calan weyn oo calanka soomaaliyeed oo aad u weyn anna waxaan ku wareejiyey madaxweynaha maadaama ninkaan dhallinyarada oo dalkiisa u keenay waana mahadsantihiin aad iyo aad buu mahadsan yahay soomaali ha noolaato wafdiga sharafta leh waxaan leenahay aad iyo aad ayaan ugu bogaadinaynaa ka qaybgalka ay nagala soo qayb galeen kowda luulyo maanta waa maalin weyn waa maalin qaran waa maalin gobolladoo dhan ay israaceen waa maalin aan iloobi karin waa maalin gumaysiga aan iska qaadnay soomaali ha noolaato asalaamu calaykum waraxmatullah iyo amniga qaranka ee Soomaaliyeed mudane Cabdisamed Maxamed Macalin Xasan oo kelmadii munaasabada inoo soo jeediyay soo dhaw mudane bismillaahi raxmaani raxiim markood waxaan leeyahay ciid wanaagsan mar labaadna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabka ama Soomaalida ku nool guud ahaan waddanka Norway khaasatan magaaladan Oslo oo caasimadda ah aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa sida sharafta leh iyo qadarinta leh oo noogu soo dhaweyseen magaaladeen waxaa farxad weyn ii ah dhalinyaro aad u fara badan oo rag iyo dumarba isugu jira iyo hooyooyin iyo odayaal intuba maanta inay u soo wada baxeen maalin weyn oo taariikhi ah oo qof kastoo Soomaaliya qalbigiisa taabata oo ah maalintii Soomaaliya oo dhan ay xorowday oo ay cadawga ka xorowday oo calanka buluuga ah oo qaarkiina kor u taagayaan qaarna ay dhar ahaan u gashan yihiin maalintii uu xoroobay oo Soomaaliya hal mid noqotay 60 sano ka hor maantayto ay ku aadanayd waxaana aad iyo aad farxad weyn igu amaantayto Oslo oo aan maxaa la yiraahdaa waddanka Soomaaliya inta u jirta aad ogtihiin inaan maantayto looga dabaaldegayo xafladaas maalinta 1 July oo ah maalintii xornimada Soomaaliya waxaa la idinka rabaa sida aad halkaan ugu soo baxdeen oo aad calanka kor u sidaan midnimada Soomaaliyeed iyo shakhsiyaddii Soomaaliyeed iyo maxaa la yiraahdaa waddankii Soomaaliyeed inaad kor u qaadaan oo aad walaalihiina Soomaaliyeed oo gudaha jooga aad maxaa la yiraahdaa aad la wadaagtaan culayska iyo dhibaatada saaran waxaa la idinka rabaa Soomaalida dadka u maqan maanta adinka weeye adinka la idinka sugaya inaad badbaadisaan dalka inaad badbaadisaan adinka la idinka sugaya inaad ummadda badbaadisaan dawladda aad la nooshihiin oo ay codsanayso inaad midowdaan oo aad hal mid noqotaan oo aad gabigiin maxaa la yiraahdaa aad yeelataan hal urur aad yeelataan hal magac aad yeelataan sida aad maanta meesha u safantiin oo aad meesha u joogtaan hal mid inaad noqotaan oo unity-giina uu noqdo mid jira sidaas waxaan kaga sidaa message dawladdii Soomaaliyeed iyo dawladda aad la nooshiin labadaba ay idin soo gudbinayaan oo aan rabaa inaad saas u qaadataan waxaan rabaa sida aan maanta meeshaan u taaganahay haddii Ilaahay yiraahdo bisheeda kale inaan u istaagno xeebtii leedan aan sugu nimaadno oo aan wada istaagno haddii Ilaahay yiraahdo No!
fayduye markaanuu ka hooyaaday ifka uga soo baxay anigoon afaha baran dacawdiisa udugane iyo waaqariyo aqligaygo afaha baran dacawdiisa udugane iyo waaqariyo aqligaygo Stop! Gå sammen! Bli enige! Somalie, ta så, sko til så det. Had Markina tagderane, targera walikine. Waha alla unnaya, ilmatuiga kumaneso. Itlan min lodido, la doxada nahaye. daawadayaal weli waxaa inoo socdo fagaarihii weynaayo idiinga soo tabaynayna xafladda weyn ee kowda luulyo oo aad u xiiso badan dad badanna isugu yimaadeen ay maantana ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socota dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyo dad kale oo aad u badan oo ka soo qayb galay shabakadda warbaahinta calanka ayaa idiin soo tabaynaysa waxaan la taaganahay mid kamid ah dadka halgamay calanka Soomaaliyeed ee kamid ah 13 qof ee SYL Cabdiqaadir Cali Boolay sidee u aragtaa maanta xafladan weyn ee lagu casuumay ee kowda luulyo aad iyo aad ruuxaantii ugu faraxsanahay konton iyo laba sano ka bacdi dawlad iyo ummadda Soomaaliyeed aanu dhalinay ka bacdi maanta inaan imaado meeshaan inaan imaado aan ka soo qayb galo shirkan oo qiimaha iyo khaayaha leh ee ummadda Soomaaliyeed waxaan ku goorinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto sanadkan waxaan leeyahay ha inoo noqdo sanadkii dib u soo nooleynta ummadda Soomaaliyeed lagana badbaadiyo burburkii 22 sano ahayd intaas shucuurtaada ma qiyaasi kartaa xagee shucuurtaada maanta dareenkaaga sidoo yahay maanta waxaad moodaysaa inaan maalintii dawladnimada aan qaadanayna ag joogo maxaa yeelay ummadii Soomaaliyeed shacabkii dumarkii caruurtii iyo wiilashii oo dhan ayaa yimaadeen dadweynaha Soomaaliyeed maxaa ugu baaqaysaa taariikhna u rabaysaa maanta waxaan u reebayaa ummadda Soomaaliyeed midnimo ummadda Soomaaliyeed midnimay u baahan tahay kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Cali Boolay oo ka mid ah dhalinyaradii isku abaabushay inay Soomaaliya xoreeyaan ahayd 13 SYL ka soo qayb galay xafladda weyn ee kowda luulyo waa mahadsantiin aniga ku ceynisay aniga waxaan ka mid ahaa nimankii 13 nimankii ku xigay dhalinyaradii ku xigay baan ahaa sidaa daraadeedii halgan dheer soo marnay waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed inay ilaawdo qabiilka Iiraan khaasatan ahaan qabyaaladda haliska ilaaliyo waa tii burburisay ummadda Soomaaliyeed ma sha Allah wasiirkana waa rabnaa يا الوزير كيف دورك تاكسون نبقلك ما تقدر شيء حرية كل aad baad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ee ka soo qayb galay
mid ka mid ah duuliyayaasha sare ee Soomaalida ayaa halka maanta ka soo qayb galay ku wareegsan sidoo aragtaa maanta kooda luuliya maanta ma sha Allah xusuus weyn ayay noo leedahay maanta waa maalintii qaranka waa maalintii Soomaalinimada waa maalintii isku duubnaanta waa maalintii gobolada oo dhan midoobeen waa maalintii calanka buluugga ah dusha la saaray gumaysiga heediisa askarkiisa waa maalin taariikh weyn iyo xusuus weyn ugu reeb waxaan salaameynaa madaxweynaheena qaaliga ah mudane Sheekh Shariif salaam qofna Afrika quraanka caadiisa ku salaamay anoo in Cabdullaahi Kutume dhammaan waxaan salaameeyaa walaalahayga Mexico Canada Mareykanka kulli waxaan leeyahay sanad wanaagsan nabad ku gaaro oo bashbashi barwaaqo ku gaaro farmaajo kuula ku leeyahay aad u mahadsantahay Somaliland روانكان وحلي راح بسمت وحالك دقيقة Somali وين وانت وانا وقراني ما تلقى بلا Somali معناها مدينية Somali هدول أسيقا هو يدي لنا أسيقا يسيقا كمان Somali هذه أكبر كاسرة ما شعر الصوماليين هو أقولين قال تقريبا على كل هذه أتباع الصوماليين يا معنا سجاهم بين المشهد والمشهد waxaad la taaganahay Cornel Trump sidoo waragta maanta xurriyadda kooda luuliyo waxaan u arkaa inay tahay maalin xus dheer mudan maalin qiimo weyn u fadhido ummadda Soomaaliyeed waxaana leeyahay midnimada iyo dadnimada iyo calanka dhibaatada laga soo maray qof walba oo Soomaaliya waa inuu soo sarrifin calanka shanta geesiga haddii aad calan weydana cidna kuma maqna calankaas yaan la tuurin yaan la sarrifin yaan la gadanin waxaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan u soo jeedinayaa barwaaqo iyo bashbash iyo qalbi wanaagsan inay ku ciidan aad baad u mahadsantahay وأنا أدور كدور رئيس عليك. وحاول أوصل أخبارها. أفضل ما ماشي خروج. ما عليه. ده صبوصة. صبوصة. نعم. ولا بيجود. صبوصة اللي بيجود اللي بدورين. وين؟ ملك يا ولد. تكت كلها. سلورك كمان تيجي. runtii waa farxad weyn oo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto aad iyo aad u muhiim ah aad u faraxsanahay dhammaan Soomaalida nool Oslo ariga Norway waana farxad ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto aysan u kala harin oo maalintan dhalanay oo maalinteennii oo maalinta magaceena la xusay aad u mahadsantahay sidoo aragtaa maanta dareenkaaga sidoo yahay maalinta xurriyadda qaranka Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u arkaa maalin aad iyo aad u farxad badan waa maalinkii dareenkeena keenayso dhiiggeena keenayso waa maalinka awooyaasheen odayaasheen dadkeena u soo dhinteen dhaawac iyo dhiig u soo hureen maanta oo kalena waa maalinka inaan u kacno aan aad ugu fiiroono wadnaheennana way ku taallaa mar kasto waxaan idin leeyahay Soomaali meel kasta ku nooshaana hambalyo dhammaantiin baa idin leeyahay hambalyo wanaagsan idin leeyahay maalinkan waa cawsitiin maalinkii dhiigga iyo dhacanka loo bixiyo weeyaan maalinkan oo kale maalin lagu kala hara maaha hambalyo dhammaantiin How I think about it? Yeah. It's very nice. Lots of people, lots of dance, lots of music. Very nice. Man kan snacka norsk. Ja, väldigt trevligt att se dig med dagen. Lite väl. Tusen tack. Tack. Hej, gratulerar på dig. Somalisk National Day. دورك كمان تيجي حضرتك مالنا عجائب مالنا ضحية مالنا صور كذا مدبنا هذا واحد مالنا مالنا يعني بيننا بطنين وكذا سمعنا تسوين مالنا ويانا عجوين كبر سوين كي وربا عندنا بحيلة من هذه الرب فرام ولا ما في مغير هذا صبحنا يا أخويا
maanta waxa wana ku maalin farxadeed waxaan filayaa muddo badan way dhacday sabab inaan u dabaal degno marka aad baan ugu faraxsanahay كودلوليو soo aragtaa aniga dhiig maanta waxa waa dareenkayga waa kacsiyan brad si caadi ah oo kacsiyan dareenkayga ma dareenkaaga maxaa kiciyay maxaa kiciyay maanta waxa maanta furiida qaaday Kودلوليو aad baad u maasantahay balkiisa daarayanta sameeyay balkiisa aar ni oy bis tu ar hal soo moogdu kuma har ma leeyahay taday balkiisa dimo kuma hit ma leeyahay taday tadigti inaan bashbash iyo barwaaqo inaan warda waxa laga codsanayaa adigu inaad tagto qolka laga hagayo shirka warda Soomaaliya ay maanta calankeena oo halka la saaray booliska saarayso Ingiriiskan aad baad u maasantahay Ingiriiskan ku soo dhaw maalinta xorriyadda Kودلوليو xorriyadda ku soo dhaw maanta sidoo aragtaa farxadda weyn ee calanka Soomaaliya maanta faraxsan tahay de waa faraxsan hadal oo faraxsanaad Soomaaliya u sheegay aad baad u maasantahay waan ku faraxsanahay waxaan leenahay Soomaali meel kasta oo joogtaba walaalayaal ciid wanaagsan aad ku ciidaan khayr waxaan Soomaalidu rajaynayaa Ilaahay qalbigooda oo ay midoobaan oo ay gacmaha isqabsadaan oo ay walaalo noqdaan Soomaali meel kuma kala maaranto Soomaali meel kuma kala maaranto waa dad ismida waa dad isku dada waa dad ismaaxo waa dad iskiina waxaan leenahay Kودلوليو ciid wanaagsan walaalayaal meel kasta oo joogtaan aad baad u maasantahay sidoo aragtaa معلش في عندي مسامع انا مفرحان هيدودك كده ما انت sidoo aragtaa maanta Kودلوليو ما شاء الله تعالى waxaan u arkaa guul iyo farxad maalinta Kودلوليو Soomaalida dhammaan iska soo wada qayb gashay wasiirka arrimaha gudaha waaxda socdaalka gaafo oo soo qayb galay ما شاء الله تعالى guul weyn ayaan u aragnaa Soomaalidana waxaan u rajaynayaa sanadkiisa guul mid ka lamid ah inay ku gaaraan nabad iyo bashbash iyo barwaaqo intaani in ka sii badan ayaan u rajaynayaa in ilaahay baaqi sanadka dhammaan aan ku iidi doono Kودلوليو faqaaraha telefoonka aad baad u maasantahay That's my soul out there. There's another young kid who plays gangster songs. He knows what's right, but Emmy's doing wrong. That's my soul out there. There's a young Somali kid out there who... dareenkaygu waxaa weeye maadaama halkaas uu calan ku qoran yahay calali kuma noqdo calan inaad caynkaaga ku ah calan waa tahay sidoo aragtaa shabakada warbaahinta calanka wow haddiiba magaciisa calankii asliga ahaa uu warbaahinayo xidig dhalaalaysa ay tahay maantana aan u jeedo inaan nalaga isdaawanayno oo xidigahaan daawanayno waa maalin wacna wanaagsan safarka dheeraa soo gashay maxaa ku sasaaday marka halkaas safarkani horta aniga Hollywood baan film la sameynayay Tom Hanks movie baan ahaa Post of the Pirates أنا مرة si socdo private jet noo taagantaa waxaan idin niman yahay idinku big picture baa wadiin laakiin dadkaygii baa big vision wuu sugaya shan cishaan soo qaatay biritaan noqonaya Soomaali weyn wax ka fiican male ee baa weyn oo waaxida intii aaminta iyo Soomaali weyn aad baad u maasantahay idinka mudan 100% in adeer calankan ku iri daawo calanka xidigaha annaga yaan isdaawan marka aniga goolaya magaca fanaaniinta Soomaaliyeed waxaan bilahay ciid wanaagsan halkan waxaan ka salaamayaa website calanka iyo shaaciyo oo soo qayb qaateen maanta munaasabada Kودلوليو iyo Soomaali fara badan waxaan bilahay nolosha wanaagsan aniga oo xuseen Abdul Amin Kودلوليو iyo caruurteeda Aamir iyo Xanaan Aamir inta la sidaabo ana nolosha wanaagsan sidoo aragtaa maanta ما شاء الله ما نذكر الصومالي وكودلوليو أكثر قيم قروة النور بينهم كيمات magaalada Muqdisho dareenkayga meel 6 saacadood oo macna u soo dareenkayga waxaan arkayaa aad u faraxsan aad baad u maasantahay intaas waxay ahayd muwaadiniinta Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho uga tilisay oo la qayb qaadatay Kودلوليو waxaan ku soo dhawaashay ka doobaay calanka soo aragtaa maanta iyo xorriyadda Kودlوليو maanta waxaan u arkaa maalintii camal inay noqoto waa maalin aan la ilaawin weligeed Soomaalida meel kasta joogtana ay ku cusub waa maalin wanaagsan ujeedka calanka ugu sawiran wejiga ma noo micnan kartaa waad aragtaan oo calankii shanta Soomaali meel kasta joogto ka turjumayo waa maanta waxaan ugu soo sawiray waan
caddeynaya Soomaali inaan ahay sidoo aragtaa shabakada warbaahinta calanka waa idaacadda keliya aan muxuu ahaan kala socono dhaqdhaqaaqa waddankeena ka jiro iyo dhaqaaqa Oslo marka waxaan leeyahay calanka sidaan iyo si ka fiican aan ku rajeynayaa cadowga Ilaahay jiro aad baad u mahadsantahay waxaan ka leeyahay degmada Moos Oslo daqiiqo waxaan leeyahay maanta aad u faraxsanahay xafladda qiimaha weyn ka soo qayb galay adiga qaasatan dareenkaaga maxaad dareemaysaa adiga soo waragtaa xasan maanta xafladda koodulul maasha Allah maanta waa maalin taariikh leh ummadda Soomaaliyeed waa maalin taariikh waa maalin aad u farax badan sida u jeedaan intaana shacabka Soomaaliyeed ay soo qabshay waa maalin aad qaali noogu ah carruurteena inay bartaan inay mar walba taariikhda Soomaaliya iyo dhulkooda iyo xorriyadooda mar walba ka koraan waa maalin waxaad soo waragtaa shabakada warbaahinta calanka shaqada maanta halkan ka wada maasha Allah shabakada calanka waa shabakad mar walba u shaqeyso ummadda Soomaaliyeed meel walba ku noolyihiin wararka saxiixa soo geliso mar walba ummadda Soomaaliyeed midnimadooda ka shaqeyso marka waxaan dhihi lahaa shabakada calanka insha Allah shaqada ay hayso waa shaqo aad iyo aad u wanaagsan insha Allah aad baad u mahadsantahay sidoo waragtaa maanta dareenkaaga muxuu yahay maasha Allah aad baad u faraxsanahay sidoo waragtaa shabakada warbaahinta calanka ما شاء الله aad baa u mahadsantahay soo dhawow shabakada warbaahinta calanka iyo maanta ay koodulul sidoo waragtaa والله معنا مركز وادواي ما قولوا لي انا ما دوا مال نوان هذا Soomaaliya waana ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo sidoo waragtaa shabakada warbaahinta calanka shaqada maanta halkan ka wada ما شاء الله waa ku faraxsanahay shabakada calanka oo waqtigeed laga leeyahay Norway gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan laga daawado waana waqtigeed ku caan baxay koodulul iyo xalfadaha Soomaaliya inuu ka soo baxo aad baad u mahadsantahay maanta sidoo waragtaa sidoo waragtaa maanta عاوي واحدة نكون سوينا. سوينا كمان تي. عاد رميتها. عاد ما كانوا نكون سوينا. والله محاول نكون سوينا. ما تنتهي. سوينا كمان تي. عاد رميتها. الحمد لله يا ربي. أبغى ما تنتهي. سوينا كمان تي. مانتي ما أحسن بين الكتاب أبغى ما تنتهي ما يا ما تنتهي بس ما نقولك كود الليل دورك شبكة دور باين على كشغلة كود مانتي والله سنو مالك عريض كله عندنا متى سيدو aragtaa naasi xorriyada kooda luuliya عندنا متى سيدو aragtaa shabakada warbaahinta calanka shaqada ay ka wado aad baa u mahadsantahay ما هذا وبرأسنا كان واضح صورة هذا كتاب كلام عرفت هذا كور ما هذا يكون مثلا واللي بتسمع كتاب واحد جانا إن شاء الله تلقي إلى الله الصومالي دور كذا يكون كدور ما يدعى على أسباب وبرأسنا وبرأسنا مرة بينا وستات على كفترنا عفوا يوم كفتنا كدور ما يدعى على كعكارك وحياة وبرنا على بقى ما تنتهي دور كمان ما شاء الله وحاول كمان هذا وبيجا نور الدان هذا ما سنتهي شلون ركبت مانتي والله هادي بقياسك تقدرين الشعور هذا نقول قوة وطنك وحنا ممنه سنة سوى صعد وحنا إن شاء الله إنه حمر هذا ما سنتهي شلون ركبت شبكة واربعين عليك هذا ما سنتهي لك أنا هذا نتاجر سنة شغلة ودينة لساني قدر مصيبة إن شاء الله هذا ما شلون ركبت مانتي عملت الكود دورك كمان ومالين هذه ومالوين الصوماليين وشو الصوماليين هذه هذه الصحفيين ما نقول راح نحكي إلى نوع
Navada,